بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله الصوماليد ميلاد joogtaan ba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku ammaanyeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah fi inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiintan Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalkii Allah inoo badbaadiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed dhibka ay ku jirto inuu ka saaro, abaaraha inuu Ilaahay roob keeno, colaadaha inuu Ilaahay damiyo, Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka inuu dawladnimada fahamsiiyo. waxaan la yaabaa dadka dawladnimada iyo shakhsiyaadka iskaga khaldan. qof la leeyahay waa musuq, waxbuu boobayaa, baa qof difaacaya oo laga yaabo inuu ku difaacayo kaliya inay isku reer yihiin. oo maxaa kaa galay walaalo? maxaa u difaacaysaa nin tuug ah oo saaqid ah oo adiga hantidaadii boobaya? ninkii adiga ku dilayay baad adigu difaacaysaa. nasiib darrada dawladnimada laga fahmayo kama waxaa kaloo la yaab leh, isagoo qof difaacaya baa waxaa laga yaabaa siyaasada aan iswaafaqi karin inuu isku kombeer gareeyo. tusaalan soo qaadanaya, qaar baa waxaa leedahay war Kenya weerar bayna ku haysaa, imaaraadka weerarna ku haya. wuxuu la soo boodayaa Kenya markaa tira Ethiopia ka war. Ethiopia badna ina kuma haysato, maxkamadna ina kama dhaxayso, dhulkeenana duulaan kuma aha. dhul bay labaduba ina ka haystaan, waxay ka siman yihiin labaduba dhul inay ka haystaan, labaduba inay jecel yihiin Soomaaliya inay baaba'do oo ay markaa gacanta ku dhigaan. isku siyaasad laakiin ma aha. hadda marbay siyaasadoodu mid ahayd, laakiin awood aan leenahay inay kaga joogeen. marbaa Ethiopia aggressive ahayd oo dalka haysatay, hadda Ethiopia dib bay u fariisatay, weerar in kuma hayso. Kenya se waa offensive, safka hore ku jirta, dagaal un bay wadaa, wax ay dhibaatayso iyo weerar un bay nagu haysaa. Ethiopiana faraha ina kala baxday ma sinna. qofka intaa fahmi karin waa qof aan dawladnimada fahamsanayn, ama uun siyaasad nin reerahoodii ihi ay reerahooda wato iska difaacaya. naf male. waxaad la haysaa imaaraadku waa musiibo, balaayo wadaa, waxbuu markaasuu ku leeyahay qadar ka war. qadar maalan lacag bay bixisay aad u tiro badan. Soomaaliya maxay ka faa'iiday? xilligii iyaga iyo ay dirireen imaaraadka iyo sacuudiga oo dhinac ah, Soomaaliya dhexdhexaad bay ka noqotay. intaa kaliya ka faa'iiday. Soomaaliya lacag ma siin, dekada ma haysato, meelo ay xukunto ma jiraan, ciidan ugama dhex dhisna Soomaaliya, faragelin ay ku hayso dalka Soomaaliya oo muuqdaa ma jiro. laakiin imaaraadku maxay haystaan? laba dekadood oo ay sharci darro ku haystaan, Berbere iyo Boosaaso. maxay rabaan hadda inay qabsadaan Xamar? maxay rabaan ciidan inay ka dhex dhistaan Xamar? maxay haystaan ciidanka ka dhisan Puntland oo la yiraahdo Mariinka? maxay rabaan inay gacanta ku dhigaan Niisa oo burburiyaan, oo hadda dad iyada babad u ahay ay gacanta ku hayaan. waxay rabaan waxay Yemen ku sameeyeen, waxay Liibiya ku sameeyeen, waxay Suudaan ku sameeyeen, waxay caalamka muslimiinta ku hayaan bay ku wadaan Soomaaliya. marka tartansiinaysa marka maxaa ka khaldan? imaaraad maxaa ka faa'iidnay? qadar xafiisyada xisbiyada hadda la dhisayo, xafiiska prime ministerka iyo dawladdu ay xukuumadda dhan degayso, laamiga weyn oo highwayga ah oo afgooye iyo isku xira Muqdisho, ka balcado hadda socda, intaasoo milyan oo dollar bayna siisay. maxay ina ku qabtaa iyo waxba? maxaa u tartansiinaysaa marka? dawladnimada maxaa u fahmilaada marka? ninka iyada heshiiska la ahaa ama bolisigiisa lagu shaqaynaya baad neceb tahay, macnaheedu maaha inaad Soomaaliya danteeda iyo interestigeeda aad dhinac ka marto. dhaqan xumaday ka mid tahay siyaasadda. intaa kelmaddaas waa kelmad guud. war siyaasadda iyo dawladnimada iyo danta Soomaaliyeed ha kaaga horeyso shakhsiyaadka isku reeraha tihiin. intaas waa qodob. dhowr qodob baan ka hadlaya. intaas oo hordhac. Roble waxaan dhageystay markii uu xil wareejinayay hadlaya, hadalladiisa laba qodob baa ugu muhiimsanaa. qodob waxaa u jawaabay ra'iisul wasaaraha cusub oo wuxuu yiri dad halala diriro. dad uu la dirirayay sanad iyo 6 bilood oo uu madax ahaa, oo uu dagaal ku qaaday, oo uu si kasta ula diriray, buu wuxuu rabaa wali in la sii mayd garaaco. horey baa waxaa loo yiri ma sax inay tahay in kale naagaha iyo fulaygu ninkii lagdaan kama kacaan. hadda ka hor nin warkaas waxaa la iga sheegay madaxweyne xasan sheekh Roble intuu qiimeeyay buu wuxuu yiri waa sabi xagga caqliga iyo aqoonta garashada. sabi weeye, ilmo yar wali inuu mayd garaaco rabaa.
roble wuxuu yiri aqoonyahanka iyo culimada rag culimo sheeganaya iyo aqoonyahan baana maaga sanad iyo 2 sano ka yar buu joogay laba guri oo min $1 million u kala baxay gurigii dhagdheer oo uu ka iibsaday airportka agtiisa $1 million u kala baxay Nairobi guriga laga dhisay $1 million buu kala baxay maxaa laga aamusaa waxa laga celinayay dawladnimada intaas oo warqadood ba isaga laga soo saaray ma sameyn kartid awoodii baa laga dhimay wuxuu noqday musiibo ilaahay umada dhaafiyay xaqiiq baan idin sheegaya hadal hadda koor uu Ahmed Nasir lawyer reer Kenya uu yiri baa waxa Soomaaliya hadii ka badbaado dhibka rooble ay ka badbaado dhib kasta oo la hordhigo way dhaafaysaa qiimeyntaas qiimeyn aqli iyo xigmad iyo indheer garadnimo ku dhisan bay maanta nin wasiirada kamid oo tagay iiga waramay markii xil wareejintii dhacday kadib tagay meeshii oo rag badan wareystay wuxuu igu yiri waxay leeyihiin ninkaanu sideedaba waxaan la yaabnay criminal intent wuxuuba ahaabay dhaheen wuxuu rabay inuu dadka laayo way u shaqeyn weyday waad ogtiin isku dayay professor Cabdiwahaab inuu dilo waad ogtiin isku dayay Fahad Yaasiin inuu dilo waad ogtiin inuu ku eedeysan inuu ku walaayay nisa u shaqeeyo ay kamid tahay Ikraam Tahliil waxa uu rabay bay leeyihiin ragii la shaqeynayay ilaahay baa ninkan umada ka qabtay war ma haysan bay leeyihiin waa xafiiskiisii kuwa ka tirsanaa ma aha kuwii farmaajo iyo asxaabtiisa ahaa ma kuwii isaga xafiiskiisa ka shaqeynayay rag badan oo kamid ah mawjeeda ma raba inaan magacaabo ilaahay baa umada dhaafiyay bay leeyihiin ninkaanu dhibaato weyn buu geysan lahaa wuxuu ku leeyahay maxaa wax la iiga sheegaya waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliyeed inuu fahmo ogaado waxba laga sheegay hatta Cabdiraxmaan Cabshakuur oo isku ragahaayeen baa banaanka iska mariyay wuxuu yiri iima dhiibin 1 milyan buu ballan qaaday 100,000 buu keenay aw intii kale dadka markaad ninkaas oo kale aad tiraa war xagee geysay 900 oo kale ku dhahaya maxaa ka rabta oo qabiilku uu madax maray war dawladnimada iyo qabyaaladu waa kala labo dawladnimada la rabaa ninna loo joojin maayo loo niximaayo ninna laga aamusi maayo nin tuuga laga celcelinayo ha ka dhisanin ciidamada dhulkoodii oo ha dhisan gobolka Banaadir iyo booliiska dhulkii la sii ha dhisan laga celcelinayo nin laga celceliyo dalka ha gadin oo warqad la hordhigay leeyahay heshiis ma saxiixi karo waxa ma sameyn karo maalinba wax laga qabanayo sanad baa la dirinayo oo laga ilaalinayay inuu dalka aboobo burbursado isagoo isku yaal dalku in la dhiibo oo ninka laga badbaadiyo ba sanad laga shaqeynay ninka difaacaya iyo isaguba aqli xumay dalka la soo galeen ilaahay baana ina dhaafiyay inta hayna ku dhaaf qodobka labaad ee wixiga waxa way Bayle dooda aad ku loo xiisa badan kelmad baan aad uga helay siiriga waxaan u qabay dawladii hore kanaba lagu yeerinaya gudoomiye ku xigeenka Sacdiyo wali ma firim bay wadataa war waaya Sacdiyo gudoomiyaha tahay sax xildhibaan baa tahay su'aalaha iyo inaad ku adkayso iyo waxa soo dhawaan rabnaa wixii Bayle lagu sameeyay waxaan rabnaa inay socdaan anigu saasaan rabaa in dabka la saaro wasiir kasta inta loo yeerto in la xagxagto la laasto isaguna uu sidii Bayle uga baxo yiraahdo waa qabtay xisaab xir maxaa uu sameeyay weey 4 jeer baa sameeyay 2017 baa kugu dambeysay May 18 baa sameeyay 19 baa sameeyay 20 baa sameeyay 21 baa sameeyay kuwa dokumentigoodi xagee buu aaday meeshaan uu soo gaaray anigu intii hore dhan waa soo dhaafiyay auditor generalka waa soo dhaafiyay xukuumadda waa soo dhaafiyay ra'iisul wasaarihi waa soo gudbiyay baarlamaanka la keenay wixii inta ka dambeeyay Maxamed Mursal baarlamaanku fadhiyay hal weydiiyo warkaasi war sax ah sidaasuna kaga baxay isagana waxaan u rajaynayaa mustaqbal qurux badan kulli xogtaan helayo waa ku daayay wasiirnimadiisii waa la qaatay oo dad kale isku haysta nisa al-shabaab haysta dhaqdhaqaaqa ka socda ma qurux badna madaxweyne Xasan Shiikhow 5 jeeraan kala taliyay ma meel lagu khamaari karma adaa u baahan nabadgelyadaada ku xiran dawladnimadaada ku xiran war wiilkan yarka ah oo al-shabaab nimada ku eedeysan oo aan aqliga iyo cilmiga midna aan ku wada aan lahayn hay'adaas
oo xataa iskaga dhowro haddii yacni laga shakisan yahay wixii shaki keenayo iska ilaaliya aan lahayn oo tallaabooyinku qaaday oo dhan aad u jeeda yacni haddaadan dee kolley la ogeyn oo aadan adigu usoo dirin dabcan the back stabs with you adaa ka mas-uule meesha ka qabo al-shabaab baa niisa haysta waa iilka kii dhigay u ergootoy wey ninkii loo dacwoon lahaa ninkii dagaalka lagu qaadi lahaa baa loo dacwoonaya arrintaas waa iska nasiib darro soomaali ku dhacday laakiin waxaan rajaynaya insha allahu waa ka kabanaynaa waa kasoo kabanaynaa awalba eber baan ka bilownoo dhisnay haddana awood baan u leenahay inaan dib u dhisno ciidamada nisa iyo madaxda sare ee saraakiisha waxaan kula talinayaa ilaaliya nidaamka dowladnimada shakhsiga iyo dowladnimada kala garta ilaaliya hay-adda ilaaliya sharafkeeda sirta qaranka ilaaliya ciddii aan xaq u lahayn inay ogaato sirta qaranka ha u dhiibinina qodobka igu xigaa waxa weeye wasiirada la dhisayo xamse iyo xasan sheekh albaabada u xiran xamse iyo xasan sheekh albaabada u xiran waxaa la dhisayaa wasiiradii waxaan maqlayaa wasiirada eega ah puntland kuma jirto horey baan u sheegay madaxweynena ma leh ra-iisul wasaarena ma leh wasiirana ma leh laakiin waxaa laga yaaba laba yaryar inay hesho waxay yidhahdaan niic baa hadda soo baxday yani cabir yar weeye niic laba niica inay hesho waxaa laga sheegay qorshayntii oo la rifay oo economic developmentiga iyo investmentiga laga reebay oo qorshayn aan labadaa wadani maxay tahay lama yaqaan inay heli doonaan waa laga yaabaa magaca aan maqlayo oo wasaaradda arrimaha dibadda ama finansiga doodije nin la yiraahdo oo ay xasan sheekh isku rag yihiin ragga aan maqlayo waa raggii xasan sheekh asxaabtiisa ah waxaan maqlayaa sambalolshe iyo cabdirasaaq amniga ahaan jiray midkood in amniga loo dhiibi doono labadooda ahaan jiray waa nasiib darro in halkaa dib loogu laabto oo dowladihii hore in wax laga bartay ahayd dib loogu noqdo nasiib darre aniga ila muuqata fartaagoo raadinayaa la ii sheegay difaac in laga dhigo sanatarnimadana iska casilaya haddii laga dhigo waxaan maqlay bukhaari iyo odawaa waxay isku haystaan arrimaha gudaha odawaa in la cayriyey waa maqlay oo bukhaari uu qaadan doono lama yaqaan faarax sakiin mar kaluu kasoo muuqan doonaa wasaaradaha wuxuu noqon doonaa wasiirka cadaaladda sida la sheegay hadda cadaaladdu isagay ka bilaabataa isagana ku dhammaataa saasay ila tahay ina cumar huruuse abshir cumar huruuse iyo cali xaaji warsame iyo khadar faroole kursi ka mida kuraasta wasiirada yaryar oo niicda ah bay isku haystaan maybe qorshayntaas oo rifan maybe wasaaradda waxbarashada maybe mid kale chief of staffka xasan sheekh iyo jawaari midkood baa difaaca loo dhiibayaa baan maqlayaa biixi ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha saalax baa ku haystaa la yiri laakiin biixi bay u badan tahay inahaas ilaahay wasaarado fiican wasiiro fiican iyo dad aqoon leh baan ka rajaynaynaa recycling magacyo la yaqaan uun inay iska soo noqnoqdaan nasiib darro wey magacyo la yaqaan oo lagu yaqaan dowladdan soomaaliya meel la gaari weyde 2000 oo siyaasiyo xanaaqsanaa baa dib loo recycle garay iyagii un baa lagu soo celinaya horey baa loo soo arkay riwaayad la daawaday wey mana shaqayso dowladdii hore oo xasan sheekh maxay ku suntanayd magaceedu muxuu ahaa caalamku muxuu u yaqaanay ma isla tiibu ku noqonayaa marka waa u caqli xumo hadduu tii ku noqonayo da' weeye khibrad baa u korodhay dowlad buu 4 sano waday iyo bar 5 sano iyo barna mucaarad ku ahaa si fiican buu yaqaanaa dad ma uusan waayin xasan sheekh xasanow dad la imow dhalinyaro aqoon-yahana la imow oo at least xataa maaragtay yaysa khibrad lahaane aqoon leh recyclingkaas macna ma sameeyo intii uun haddaad soo celisid natiijadii hore mid ka fiicanna aad rajaynaysid sax maha hadday qabyo kaa noqotay oo 4 sano iyo bar ay qabyo kugu noqotay oo waxba aad dhammayn weyday kuwii qabyada ku geliyay haddaad dib u soo celisid see qabyo uga baxaysaa marka
ma mar kale haddana oranaysaa qabyaan ku jiraya la iigu daro arrintaas ka fiirso xasan sheikhow aad iyo aad uga fiirso qodobka iigu xiga puntland musuqii baa cirkaa maray waxay maraysaa guddoomiyihii degmadu inuu abaaraha alaabtoodii gurigiisa ku degsado maalin cad oo muuqata buskudkii baa la xaday markaasaa wasiirkii wuxuu yidhi buskudkii askari baa xaday daawadii caruurta iyo nafaqada haweenta iyo caruurta emergencygooda baa la boobay horey baa loo boobay covid-19 mushaaradii ummaddaa la lunsaday wax alla wixii dadkaas lacag ay lahaayeen ba xamar inta lala aaday doorasho lagu lugo-ay oo hataa wasiir aan la helin yaa lagu keenay farmaajaan ridnay baa puntland 3 sano iyo bar siisatay oo muxuu farmaajo kaga fadhiyey puntland oo hadda ay helaysaa hadduu ka kacay iyadaa taqaan waa arki doonaa time will tell shirkadda TISL waa musuqii oo another level ah shirkad xasan deni uu ku matalaya Siciid Cabdullaahi Deni oo ay wadaagaan kuwii lahaan jiray DB World ayay u xuubsiibatay shirkaddii DB World ee ka talisay dekadda waxaan arkayaa xildhibaano qaylqaylinaya oo su'aalo adag weydiinaya xagee jirteen 3 sano iyo barkii uu miciyaystay markaan lahayn war waa dictator socod barada waryuu idinku socod baran waryuu ordin intuusan dalandalin iska qabta xagee jirteen haddase ma waxbaa tuurtuuranaysaan oo camcamis bay idinka tahay iyo wax in laydiin tuurtuuro mise daacad bay idinka tahay hadday daacad idinka tahay it's never too late haddaa qabanaysaan qabashuu leeyahay isagoo ilkihii ka daateen oon miciyo lahayn oo xataa cidiya lahayn oo bahdalan oo caraysan oo niyad jabay oo qalbi iyo qabba u jabay hadduuba lahaaba musuqna u socda iyo wuxuu urursan kara sanadkaas iyo barkaa u haray buu idinla joogaa take him to account hadday run idinka tahay ninkaas ku fariisiya kursiga uu leeyahay dab saara waxaad dadka ku matashaan dadka maamulka u haya ama wasiir ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado ama ku-xigeen ha ahaado ama cid kale taliyo ciidan ha ahaado inaad ka waardiyeysaan hantida ummadda inaad ka waardiyeysaan sharafta ummadda waxaad dadka ku matashaan in aad iyaga qareen u tihiin u qareema adeerayaal oo haddii aad intii hore gabteen bal intaan isdaba qabta oo hadla oo warrama oo bannaanka istaaga oo mikrofoonada qaata oo maanta sidii uu shalay masawir baa la jijabiyey uu rag u xirxiri jiray cidna uma xiri kareen waa bajaqsan yahay waa la bajaqiyey dagaalkii boosaaso dharbaaxadii kaga dhacday yaa waxaa u raacday dhankalaaso culus oo xamar kaga soo dhacday naf ma uu hayo cidnana ma handadi karo waxaaruuna quruurixii barte marka si fiican inta u niqaashtaan dadka hantidooda boobaya ka qabta oo shirkadahaas intaad soo fariisataan ansixiya inay illegal yihiin waddankana aan laga ogolayn aysanna waxba ka jirin wasiirkii dekadaha iyo isaga iyo walaalkiis iyo niman caraba shirkad ay wada samaysteen baa dekada haysataa weli ma dhicin contract iyo qandaraas madaxweynaha iyo gurigiisii familigiisii walaalihiis iyo caruurtiisii iyo xaasaskiisii ay ku wareegayaan puntland kama dhicin ceeb contract lama siin farola waxaa lagu maagi jiray wiilal uu dhalay oo hal wiilo uu dhalay oo ku dhex jira dowladda oo mar ka ahaa madax mariinka lagu maagi jiray wixii ka horreeyey oo dhan ma ayna arag kanu waa another level quwaaxii baa gurigiisa galay wax alla wixii contractii ahaabaa xaafadiisa ku jira madaxda iyo meelaha kuraasta ah oo laga maamulo dowladda oo dhan waa caa'iladii yani ma ayna arag waxa kanoo kale ma ayna arag mana maqal haddana waaba caraysan yahay oo waxa laga sheegay waa aar goosanaya meeshana waa burburinaya diyaarad baana ka raacaya ka qabta marka ka qabta oo ka ilaaliya oo ka waardiyeeya shirkadaasna ku tilmaama inay sharci darro tahay aaway bonuska maxaa ku falaysaa bonus uma baahnid dhaashane waxaad u baahan tahay inay ku dhaafto shirkaddu dekadda in la xoreeyay u baahan tahay oo laga xoreeyo intelligensiga iyo sirdoonka imaaraadka laga xoreeyo iyo inta corruptedka oo la shaqaysata laga xoreeyo oo madaxweynuhu ka mid yahay in laga xoreeyo u baahan tahay oo shacabku ay dekadoodii gacanta ku dhigaan oo dowladdu ay gacanta ku dhigto
oo boqolkiiba boqol waxa ka soo baxa ay Soomaaliya leedahay intaasay u baahan tahay 4 sano maraysaa lamana taab 5 sano maraysaa lamana taaban lamana dhisin 3 sano ka dhamaatay markii Siciidan shaqada yimi 3 kalena haduu joogo marka waa 6 sano hal labina ahna ma aysan saarin marka billahi calaykum dadka ahoodadeynina ka qabta dadka baabi'inayo lunsaday oo baaba'saday ha laga qabto intaas ku koobiya insha Allah khayr badan baa idin rajeynaya baryahan waa maqnaa mashquul baan ahaa in badan oo message-ana waan helay insha Allah waan dadaalayaa wixii aan awoodno khayr badan baa idin rajeynaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi